زكاة مالك magaalada dhexdeeda بتام سلام waa nabad ይህንን የተመቻቸ ሁኔታ waxa nabad ka dhigi ተጠቅማችሁ idinka inaad nabadgelyadaas inaad ka faa'iideysataan የበለጠ ሰላሟን ማረጋገጥ ነው sida si hore man si ka daran inaad nabad ka dhigtaan ee loo baahan yahay ስራዎችን ስንሰራ shaqada kolkaan shaqeeynin እናንተ ከመስተዳደር ጋር ana bulshadiina inaad isla kaashataan መስተዳደር ደግሞ ከእናንተ ጋር bulshada inuu idin la kaashado አንድ ላይ ተቀናጅተን ነው የምንሰራው inay gacmo isqabsataan oo wada shaqeynaysiin mooyaan si gaar ah looma shaqeeyo ወታደሩ ለብቻ መስተዳደሩ ለብቻ የሚሄድበት ነገር የለም bulshada inay dhan gaar ah noqoto ciidanku si gooni noqdo wada shaqeynta ma jirto biiro kolka ተቀናጅተን ነው የምንሰራው in la wada shaqeeyo እርግጥ ስራችን ይለያያል እናንተ ከነሱ ጋር ተቀናጅታችሁ ሰራላችሁ ciidankuna gacanta isqabsada way wada shaqeynaysiin ከላይ የመጣችሁም እዚህ የነበረን kii markii hore halkaan joogana kii halkaan xagga federaal ka yimidana ልዩነት የለም waxa aan kala duwanna ma jirto buura mid baan አንድ ሆነን ነው ለአንድ ዓላማ እየሰራን ያለነው hal calaamad baan u taagana mooyaan aan kala gaar ma ahayn አንዱ አንዱን የሚፈራበት ነገር የለም የሚሰጋበት ነገር የለም cid isaabsanaysa ma jiro buura kana hebel ka cabsan hebel ka cabsan ma jirto buura እኛ የአንድ ሀገር ልጆች ነን wada hal wadan baan ለሀገራችን አንድ ላይ ነው የምንሰራው dalkanaga wada mid inaan noqono baan u shaqeynayno loo baahan yahay ay መልእክት ለማስተላለፍ intaanun baan idin dhaafinay waad mahadsan waxaana soo xiray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Gedo ahna madaxa amniga iyo siyaasadda waxaana ciidankaasi loo sheegay inay mas'uuliyadooda tahay ilaalinta amniga degmada iyo nawaaxigeeda waxaan rabaa waxa dariiskan idinku geliyay ciidanka joogo militariga ciidamada kala joogo booliiska wax alla waxaad arkaan inaysan qori magaalada dhex mari karin waxa qori u ah doolow qoryahan hadda yaala oo ciidankan ay wataan waxaana taliye kaga Cabdullaahi oo hadda idin hortaagan ama birra marka day maada intiinan iyo taliyaha keen doolow Soomaaliya gobolka Gedo